السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة وفدك السودويتي يا ذو عصلين ما أنت نقول سودويسين مال والبول نقول سودويي لكن تي ما أنت واحد عجائب فربنا أو مجالاً أو صباح لي أو دليل قادم ويدي أو أضياب يسوع أو عدوك هارين بقول ما هتسنتين وحاسب قارب وسي ما هذا قيادة لأن حالي iyadoo maashaal tomaraysa tabrajarku banaanka saxday kan roolka ay mid roog u horeeyay waftiga qaabilana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana taariikh qoran oo ay ceerigaab leedahay mahadnaqan kadib magaalada ceerigaab maanta ee gobolka Sanaag wanaaga nagu qaabisheen iyo nabadda ku faraadagteen ee ceerigaabo iyo soo dhaweynta weyn aad baanu shicbiga madaxda ku mahadnaqaynaa dal ama gobol ama martay mujtamac meel degani wuxuu ku kala horumaraa caafimaad ku helaa nabad ku helaa tacliin ku helaa waa talada da'da joogta odayaashiisa inta talada haysa ama aqooyahanka ilaahay waqtiga ku beega ayaa dadka ka saaray dhibaatooyinka oo u horseeda nolol wanaagsan dadka reer ceergaabo waxay nasiib u heleen inay heleen odayaal iyo madax dhaqameed siyaasadeed ganacsato ilaahay waafajiyay inay nabad ku wada noolaadaan dadkooda dhibaatooyinka midnimo kaga saaraan kadibna barwaaqada ilaahay siiyay si aan shisheeye uga qasin nabadooda ku fara adeegay gaar ahaan madax dhaqameedka ceergaabo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Soomaali meel joogtaba colaadu ba ka socda meel ay Soomaali diganta oo dhan cid walba magacow marka ceerigaabo waxaan leeyahay malaha odayaashii baa ku wadaasano ila taliya habeenkii nabadda iyo awoodda aad ku maamusheen u gudbiya dadka oo dhan oo duruusiga loo galay odayaasha maamulka ilaacyada ugu horeeya marka aqooyaha kala dhaafo madax dhaqameedka aan ka xusaayo ee nabadda ku fara adeegay ee intii ay Soomaaliyeed dadku u taliyeen nabad kula fara adeegay waa Suldaan Saciid oo abtirsaday oo suldaanadii awliyaashii raacay oo dadkiisa ka nabadgeliyay colaado waxa kale oo xusayaa dadka maamulaya maanta ceergaabo siyaasiyiinta ah oo ugu horeeyo Ismaaciil Xaaji Nuur oo waaya araga oo kala dabashay marxalado badan magaalada Laascaanood waxaan ku xogsiinayaa ninka dhalinyarada ay gudoomiyaha ah oo juhdi badan isagoo dhalinyarada shaqadii u horeysay u qabtay ku fara adeegay inuu nabad kaga badbaadiyo oo har iyo habeen ku fara adeegay nabadana saddexda mas'uulba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana tusaale fiican doorashada waxaan u qabanaynaa inay dadku ku walaaloobaan oo horumar ku gaaraan oo ay shantii sano la doortaba horumar si loo sameeyo ayaanu doorashada u wadaa ilaahay kiina nabadii wanaag bay noogu dhici doontaa halkaa u dhaafi maayo dadkii reer Sanaag miisay walaashanayaan wixii kala fadhiyo isku raysan aad iyo aad baan marnaba ka mahadnaqaynaa dadaalka